Assalaamu calaykum kusoo dhawaada casharadeenii online-ka aa naga barteen. Maanta cashirka waxaan qaadan doonaa waxaan ku dhex jirnaa beginnery level English lesson 10. Waxaan baranaynaa everyday objectives wax la dhahayo. Maalin maxaa isticmaalaa? Markaa guriga joogo maxaa isticmaalaa? Markaa shaqada joogo maxaa isticmaalaa? Everyday what I am doing. Waxyaabaha maalin walba aan sameeyo aan baranaynaa. Marka identify and name common everyday objectives. Maalin maxaa sameynaa? Waxyaabaha aan sameynayna English aan u baranaynaa. Use vocabulary related to the home. waxyaabaha la xiriira guryaha aan sameyno aan baranaynaa. Iskuulka waxyaabaha aan sameyno aan baranaynaa. iyo personal belongings iyo waxyaabaha oo dadka ay isticmaalaan aan baranaynaa. yacni personal belongingska xoogaa saaraynaa. Describe marka objectives using simple adjectives. waxaan baranaynaa marka waxyaabaha ugu fudud oo qofka bini'aadamka isticmaalo. Ask and answer questions about everyday objectives. Use waxaa isticmaali doonaa marka everyday objectives vocabulary in conversation and writing. Conversation ana u isticmaali doonaa. Marka waxaan baranaynaa introduction. Everyday objectives are the things we use regularly at the home way. waa wax maalin isticmaal daily use. maalin baan ilkaha nadiifinaa, waa jiifanaa, we go to sleep. intee ku jiifanaa marka bed sariira noo taalo. sariirta waxa isbedelaynin waa unchangeable way. gurigu noo yaalaa. dharaa gashanaa, clothes noo yaalo. School waxyaabaha school aan ku isticmaalnaa jiro. Schoolka maxaan ku isticmaalnaa? kursiga ku fadhiisanaa, sabuurada dhex yaalo, macalin dhex imaanayo. At work shaqada markii la joogo xafiisaa fadhisaa, ama haddaa macalin tahay iskuulaa ka shaqaysaa. haddaa askari tahay meel oo qori yaala joogtaa oo booliis saldhig booliis. haddaa tahay nin oo baawur wado baawura ku dhex jirtaa. hadba shaqaday ku xirantaa. In public places iyo goobaha oo bulshada isugu imaadaan. Public placeska maxaa laga helaa? wax dadka dhexeeyo, kursi dadka dhexeeyo, baawur dadka dhexeeyo, wax public ayaa yaalaya. Learning marka their names waxaa baran doonaa magacadooda. Help us communicate more effectively in the daily life. waxay naga caawinayaan marka inaan maalin walba nolosha markaan aan la dagaalamayno aan ku hadli karno, ereyas isticmaali karno. Everyday objectives marka are the functional tools work and basic items that shape our daily routines. waxaa la isticmaalaa marka waxyaabahan toolskan aan baran doonaa iyo waxaa baran doonaa shapes oo daily routine-ka maalin walba aniga aan sameyno. This essential range waa marka from personal grooming items like waxyaabaha itemska waxaa kamid ah toothbrush ilkaha kan lagu dhaqdo, cambis iyo waxaa kaloo kamid ah soap, towels, shukumaanka oo kale iyo blankets, bustadoo kale. dhammaantooda marka daily use way. To make marka finding exactly what you need easier, it's helpful to categorize these steps into a specific area. waxaa u fiiri doonaa marka ereyada u fiiri doonaa. tusaale personal essential. shakhsiga maxaa u muhiimsan? smartphone mobile oo wataa, wallet boorso oo wuxuu wataa lacagta la gashanayo, kiisoo wataa, fura la-aan ma socon kartid, glassaa wataa oo kiyaala iyo xiran ujeedid, iyo wuxuu wataa wrist watches. wuxuu wataa saacad oo qurux badan oo wataa oo weyn saacadaha hadda casriga ah. Kitchen and dining. jikada maxaa yaalayo? plates ayaa yaalayo, waxaa yaala bowls baaquliyaal, cups bakeeriyaal ama koob, spoon qaando, fox waxaa yaalayo fargeeto, knife mindi, iyo waxaa yaalayo catalyst. dhammaan waxyaabaha dhan marka waxay yaalayaan musqusha dhexdeeda. catalystkan waxaa la dhahaa jikada yaalo geedka biyaha lagu kululeeyo, kululeysada. Home and office waxaa yaalayo chair, kursi ayaa yaalayo, tables ayaa yaalayo, miis ayaa yaalayo, beds sariira ayaa yaalayaan, pens qalimaan ayaa yaalayaan, papers warqada ayaa yaalayaan, lamps nalala ku xiran. Cleaning supplies markii nadaafad la isticmaalayo waxaa la isticmaalaa brooms, la isticmaalaa xaaqin, dust pans waxaa la isticmaalaa geedka lagu qaado qashinka, trash cans meesha qashinka lagu rido, washing machine. dhammaan waxyaabaha aaladahan oo washing machine waxaana la isticmaalaa. marka waxaan fiirinaynaa itemyadan oo laga helayo classroom. fasalka maxaa laga helaa? objective wuxuu noqonaa book. waxaa la dhahaa this is a book. kani waa book. notebook waa ka helee. I write in my notebook. waxaan qoray notebook aan qoray. my notebook aan ku qoray. pen aa dhex yaalo. I have a blue pen. anigu waxaa isticmaalaa blue pen. pencil aa yaalo. the pencil is a sharp. qalinka waa qoran yahay. waxaa yaala eraser.
I need an eraser waxa u baahanahay tirtiro waxaa yaal ruler. The ruler is the 30 centimeter long waxay dheer tahay ilaa 30 centimeter. Bag ayaa yaalo. My bag is heavy boorsadii waa culus tahay. Desk ayaa yaalo. The desk is clean miisku waa nadiif. Chair ayaa yaalo. Please sit on the chair kursiga ku fadhiiso. Whiteboard ayaa yaalo. The teacher writes on the whiteboard. sabuurada cadaanka ku qoraya. Marker ayaa yaalo. The marker is a black. qalinka oo markerka waxaa loo yaqaana midabkiisa black white. Stationery dictionary ayaa yaalo. I use dictionary to learn new words. waxaa u isticmaalaa inaan ku barto ereyo cusub inaan ku barto aan u isticmaala dictionary. intaas oo dhan marka maxaa waaye waxyaabaha laga heli karo classrooms waaye. guriga maxaa laga heli karaa home objectiveska. Table miiska laga heli karaa. The table is in the dining room. qolka oo wuxuu yaalaa oo cashadu yaalaa ama qadada ama wax dheh. Bed my bed is comfortable. sariirteeda waa mid lagu raaxaysto. Pillow the pillow is soft. barkinteeda waa jilcan tahay. Blanket I use blanket at night. habeenkii waxaa isticmaalaa busta isticmaalaa. Door please close the door. waxaa xirtaa albaabka. Window open the window please. dirishada fur. Lamp the lamp is on desk. nalka wuxuu saaran yahay miis korkiisa. Clock the clock shows the time. saacad oo waxaa darbiyada la saarta loo yaqaana clock allaha. Television TV we watch television in every evening. maqrab walba waxaa fiirsanaa TV. Sofa the family is sitting on the sofa. sofa waxaa lahaa fadhi arbeed u taqaanin kuraasta oo dhaadheerka oo fadhiga la dhahayo guriga la dhigto waay. sofa allaha. Cup oo kale bakeeri I drink tea from a cup. Plate oo kale waa saxan. The food is on the plate. wuxuu kor saaran yahay plate saxan korkiisa kor saaraya. marka dhamaanta waxaa la isticmaalayaa objectives la isticmaalaya waay. guriga markii la isticmaalaa. marka personal belongings kan oo kale personal belongings objectives kan phone oo kale. My phone is in my pocket. mobilkii wuxuu ku jiraa jaabkeyga. wallet oo kale his wallet is a brown. boorsada oo walletka jaabka ku jira lacag kashto midabkeeda waa brown. Keys where are my keys. furahayga halkuu yaalaa. Watch her watch is new. saacadeeda waa cusub tahay. Glasses my glasses are on the table. okiyaalkayga wuxuu saaran yahay tableka. Backpack the backpack is full of books. backpack waxaa lahaa boorsada gadaal la gashto oo ilmaha qaataan oo iskoolka markay aadayaan ilmaha iskuullada loo xiro. jaamacadaha hataa waa la qaataa. Umbrella waxaa waaye dalad waaye. I carry an umbrella when it's rain. marka roobta waa la isticmaalaa. Bottle this bottle contain water. wuxuu ka kooban yahay biyo ka kooban yahay. bottleka biyaha ku dhex jiro. marka dhalada maxaa lagu qaadaa biyaha lagu qaadaa. Kitchen marka objectives. Spoon waxaa laga helaa jikada. spoon laga helaa. I eat soup with spoon. waxaa ku cunaa maraqa qaanda ku cunaa. Fork the fork is on the plate. fargeetada waxay kor saaran tahay saxanka. Knife use the knife carefully. mindida si taxadar u isticmaal. Bowl the rice in the bowl wuxuu ku dhex jiraa baaquliga. Boot the boot is stove. wuxuu kor saaran yahay dheriga wuxuu kor saaran yahay stove kor saaran yahay. Pan waxaa lahaa she is cooking in the pan. pan waxaa lahaa geedka wax lagu karinayo oo lagu dubaayo jibska oo kale ama lagu dubo sambuuska oo kale ama bajiyaha oo kale oo saliid lagu shubaayo oo dhig laga qabanayo oo kor ka wareegsan oo dheerka. marka Soomaali inta badan terminology waa lagu yaryahay. waxaa leedahay geedka oo lagu dubo sambuuska soo qabo ama geedka wax lagu dubo. guri walba qaabka waxay ku dubaan ay ku wacdaan. jibska waa lagu dubaa waxyaabo badan lagu dubaa. Refrigerator the milk is in the refrigerator. wuxuu ku jiraa caanaha fridge-ka. Kettle the kettle is boiling water. kettle waxaa lahaa geedka biyaha lagu karkariyo. garaafo waay. tarmuus ay dhahaan Soomaalida. tarmuus koronto ku shaqeeyaa biyaha lagu kululeeyaa biyaha lagu shubtaa. Office objectives waxyaabaha laga helo xafiiska. xafiiska maxaa yaalaya computer. The computer is on the desk. sentence la geliyay wuxuu saaran yahay miis korkiisa. Keyboard the keyboard on the keyboard. Tape on the keyboard. keyboardka waxaa computerka la socdo oo wax lagu qoraya lahaa. Mouse the mouse is the next of the keyboard. wuxuu dhex yaalaa miis geesoo saaran yahay mouseka baalka yaroo kuusan oo saan dhag click la siinayo waay. Printing the printer is printing document. geedka wax lagu daawacayo loo yaqaana printing.
paper. Please give me a sheet of paper. A4 sheet u taqaana warqada oo cadda A4 ka laha loo yaqaana. Stapler. Stapler waxa la is the stapler is in the drawer uu sawiran yahay. Marka stapler ka waxa loo yaqaana kan isku dhijina warqadaha qajaq siinay. Carabigana dabaas ya dhahan af Ingiriiskana stapler dhahan. Soomaalida marka maadaama xilli oo waxaan soo baxay 30 sano 40 sano aad loo isticmaalayo xilliyadii hore marka terminology ma loo diyaarin Soomaali lama dhihin stapler waxaas la had kii Carabki imaan dabaas oo dhaha kii oo wadan Ingiriiska imaan stapler oo dhaha war geedka warqad la isku dhijinayo Soomaali qaar iska dhahan qofka ka seen file keep the document in the file waxa lagu keep karayaa dokumentiyada calculator I use calculator for the mathematics xisaabaadka ku dejinaa calculatorka waxaa kaloo jiro describing everyday objectives maal waxyaaba aad samaynaysa use simple adjectives to describe objectives marka waxyaaba isticmaalayna marka adjectives ka isticmaalayna big oo kale adjective waa taqaanin waa sifooyin big oo kale waa buurnaan waa butaan waay this bag is a big waa weynta waay small oo kale marka lagu dhaho the key is small furaha waa yar yahay new marka lagu dhaho kale my phone is new mobilkeygu waa cusub yahay old marka lagu dhaho kale that chair is old kursigaasita waa mid duq ah ereyga heavy marka lagu isticmaalo kale the box is heavy boxku waa culus yahay light oo kale marka lagu isticmaalo kale this notebook is a light waxa waaye midkan waa ifa clean oo kale marka lagu dhaho kale the table is clean waa nadaafad waa nadiif waay dirt marka lagu dhaho kale window is dirt dirshadu wasaq waay long marka lagu dhaho kale the ruler is a long mastarada way dheer tahay short marka lagu dhaho kale the pencil is short marka adjective-ka maxaa loo isticmaalaa sifooyin waay waxbay ka tarjumayaan beautiful daa maqasho kale she is a very beautiful gabadha aad ay qurux badan tahay ereyga beautiful maxaa adjective waay way gaaban tahay she is short way butaan tahay she is fat marka dhahay waa isticmaal adjective kuwa marka waxaa ku baran doonaa grammarka markaad course grammarka markaad qaadatid grammarku ku jira grammarka aad loogu bartaa asking about objectives su'aalahan iyo jawaabahooda what is this this is a notebook what is that that is a chair kaas waa kursi what are these are my books kuwani waa buugayga what are those are pencils kuwaas waa qalimaanteyda is this your book yes it is my book waa buugayga where is my pen your pen is on desk qalinkaa wuxuu saaran yahay miis korkiisa whose bag is this it is Hassan's bag waxaas kale Hassan askale boorsadan white what color is your notebook my notebook is blue notebookayga maxaa colorkiisa waa midabka buluug ee marka simple conversation aan sameyno Amina excuse me is this your pen qalinka adma askale Hassan maxoo dhah yes it is thank you Amina waxay tiri you are welcome where is your notebook have notebook maadaama qalinka ani weydiisay it is inside my bag wuxuu ku jiraa boorsadeeda is that your bag Amina waxay tiri bagan gadaal ku saaran miya yes it is Amina waxay tiri great have a nice day maalinkaa ku qurux badnaato asigana wuxuu you too Hassan wuxuu yiri you too adna maalinkaaga ha ku qurux badnaato marka conversation ujeedaa macallin iyo arday waa laga soo bedelay hadda maxaa loo bedelay Amina iyo Hassan loo bedelay wiil iyo gabar oo arday ah sheekeysanayaan marka read passage-ka aan aqrino every student has a desk and a chair the teacher has a computer arday walba wuxuu haystaa miis iyo kursi macallinka teacher computer oo haystaa and whiteboard market wuxuu haystaa qalinka wax lagu qoro iyo sabuurada haystaa there are many books on the shelves meesha buugta la geliyo waxaa ku jiro buug badan students keep their notes ardayda waxay haystaan buugtooda pens qalimaantooda and pencils waxay haystaan iyo qalin qoradooda waxay ku haystaan marka in their bag boorsooyinkooda the classroom is clean fasalka waa nadiif and bright waa ifa and organized waa nidaamiyey what does every student have arday walba wuxuu haystaa buugooda haystaan moo
waxay haystaan buuggooda qalinkooda iyo benselkooda haystaan afaanimo arday walba waxay haystaa deski iyo waxay haystaa jeer kursi iyo miisoo ardaygan haystaa what does the teacher have macalinka maxuu haystaa computer iyo wuxuu haystaa whiteboard market what where are the books booked intay yaalaan shelfska ku jira meesha buugta la geliyay where do the students keep in their notes ardayda marka where do the students keep their notes ardayda intay geliyaan notekooda waxay geliyaan in their bag boorsooyinkooda geliyaan how is the classroomka maxaa waa it's clean bright and organized qaabka su-aasha loo dhisayna waa kana jawaabtana waa kana compositionka lagu diyaariyana waa kana adhoota lagu dhihi doonaa marka cashir dhammaana ada diyaari marka isku day inaad diyaarisid aad ka jawaabtid marka waxa ereyada aan ku dhawaaqaayo igu soo celi book notebook pencil eraser chair table window phone backpack computer spoon refrigerator this is my notebook the computer is on the desk my phone is in my bag the window is open dirishadu waa furan tahay the spoon is on the table qaandadu waxay saaran tahay miiska korkiisa waa sentences waay this is my notebook kan waa buuggeyga the computer on the desk computerka wuxuu saaran yahay miiska korkiisa my phone is in my bag mobilkii wuxuu ku jiraa boorsadeeda the window is open dirishadu waa furan tahay the spoon is on the table qaandadu waxay saaran tahay miiska korkiisa saaran yahay miiska korkiisa marka classroom activitieska aan fiirino activity 1 name the objective the teacher shows an object macalinka wuxuu tusay waxyaaba objectives student says the name in English macalinkana marka wuxuu sameeyay ardayda waxay sameeyay English ku dhawaaqay yani waxa ka wada wuxuu dhahaa tusaale kani waa maxay wuxuu ku dhahaa what is this in English ku sheegta laga rabaa this is a cup marka example qalna soo qaatay kani maxaa waaye pen kani maxaa waaye book kani maxaa waaye chair kani maxaa waaye bottle kani maxaa waaye phone kuwaana marka macalinka wuxuu sameynaa sawirada ardayda tusaa yani beginnerka waxaa loogu talagalay ilmaha aad ku yar sawirada wax ku fahmaan marka maadaama dad oo xogaha waaweyn oo maashuur aan ahne magacyadan haddaadan aqoonin mid kastaba pen qalin waaye buuggi waaye chair kursi waaye bottle wax waa dhallo waaye wax lagu shubta phone telephone waaye kuwaan waxaad aqoonin xataa google-ka geli mobile smartphone aa wadataa ana iga daawanaysaa marka google-ka geli fiiri what is this marka kani waa maxay is this your notebook kani buuggaaga miya where is your phone mobilekaaga aawe what color is your bag colorkee waa baggaaga answer using complete sentence yani su-aalahan waa ka jawaabaya markaa su-aashan ka jawaabtid su-aalaha ka jawaabtid waxay ku naqanayaan jumlad oo passage dhammaystiran ku naqanaya ama paragraph marka waxaa sameynaynaa classroom handy 3 books ayaa yaalo 2 kursi ayaa yaalo 2 chairs 1 whiteboard ayaa hal oo sabuurada ayaa yaalo oo cadaan 1 window hal dirishad 1 clock hal saacad write 5 sentences describe what you found waxyaaba aad haysid wax ka qor meeqa buugaa qabtaa tirada buug qor kuraasta guriga taala meeqa waa tiradeeda qor haddii oo sariir yaal tirada sariir taal adiga wax ingiriiska aad ka bari kartid wax ka qor si ingiriiska u fariisto insha Allah marka practice exercise waxyaabahan isku aadi marka matching samee objective-kan bed inta loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa adaa laga rabaa bedroom loo isticmaalaa refrigerator inta loo isticmaalaa desk inta loo isticmaalaa computer inta loo isticmaalaa spoon bedroom inta loo isticmaalaa kitchen classroom office iyo waxa loo yaqaan kitchen marka laba shay oo kitchen loogu talagalay jiro marka aniga hadda waxaa jawaab bawas dhow isku day bed waxaa loo isticmaalaa qolka jiifka bedroom refrigerator waxaa loo isticmaalaa kitchen desk miiska waxaa loo isticmaalaa classroomka computerka inta loo isticmaalaa officeka loo isticmaalaa spoonka inta loo isticmaalaa qaandada kitchenka loo isticmaalaa marka waa kaaga jawaabay oo isku aadi adiga marka waxaa laga rabaa inaad isku aadisid oo aad ka jawaabtid insha Allah meelahan banaana buuxinayna marka I write
with a maxaa ka maqan maxaa ku qoray horta su-aasha fahan an maxaa ku qoray maxaa lagu qoraa waxa lagu qoraya waa taqaana adaa lagaa rabaa we sit on inta lagu fariistaa ficilkaana waxaa ka fahmi kartaa meesha lagu fariisanayo the food is on raashinka intee la saaraa raashinka marka la cunaya intee la saaraa is gacanta lagu qabsadaa I carry my books in my book intee la geliyaa marka maadaama xambaarsan tahay kalkashi maa gelinay gacanta ma ku haynay maya meel la geliyaa jirto the teacher write on the macalinka wax ku qoraa waa taqaanaa word bank jawaabaha kuwaana marka su-aasha koowaad maxaa waaye I write with pen qalin wax ku qoraa jawaabta labaad maxay noqonee we sit on waxaa ku fadhiisanaa chair waa kaaga jawaabay ma oo adina marka waa pause qabane si aad iskugu daysid the food is on wuxuu saaran yahay plate waa dhigi kartaa meesha lagu cunayo saxanka waa I carry my book in my bag ku haystaa the teacher write on whiteboardka wax lagu qoraa su-aalaha jawaabood waa aragtay waana kuwaana intay ku yaalaan jawaab ku fasaxay hoosna kugu qornay laakiin isku aadisa lagaa rabay marka intaa inaa fahantaa rajeynaya insha allah tanoo kale hadda multiple choice waa jawaab saxa dooro we eat soup with qaando maxaa ku cunaa maraqa qaando ma ku cunayna spoon roller ma ku cunayna mastarad pencil ma ku cunayna waa dareemi kartaa qalin pencil we sleep on inta ku jiifanaya desk miis ma ku jiifanaa bed sariir ma ku jiifanaa plate saxa ma ku jiifanaa we tell time with waqtiga waxaan u sheegnaa waxaa ka fiirsanaa clock frog fargeeto notebook we tape on waxaan qornaa anaga keyboardka ku qornaa blanket geedka isku dabool busta ku qornaa bottle dhalaa ku qornaa we look through waxaan ka fiirnaa marka wax fiirinayno window dirishada baan geedka wax lagu karkariyo jibiska lagu dubo wallet boorsada oo lacag la gashto adaa laga rabaa jawaab saxda kulli waxaan rajeynaya inaa fahanteen jawaab idin fasaxa jawaab kuwaana kan koowaad wuxuu noqonayaa spoon kan labaad wuxuu noqonayaa bed kan saddexaad wuxuu noqonayaa clock kan afraad wuxuu noqonayaa keyboard kan shanaad wuxuu noqonayaa window marka describe the objective write on the sentence about each objective waxaa la isticmaalaa marka book wax ka qor chair wax ka qor kursi phone telefoon wax ka qor bottle dhala wax ka qor computer wax ka qor example the book is interesting book waa mid la xiise karo the chair is comfortable kursiga mid fadhigiisu oo macaan yahay way ada marka qabo waxaa ka qori kartid mid kastaba ka diyaari mistakeska marka ugu caansan these are my books ma dhihi kartid this ma dhihi kartid these are my books adhe I write with a chair ma dhihi kartid I write with a pen qalin wax lagu qoraa the spoon is in my school bag ma la isticmaali karo the spoon is in my school bag ma la dhihi karo the spoon is on a table aa leedahay marka possible but unusual in the classroom contact yani badanaa bag waxaa lagu qaataa buug laakiin laguma qaato qalin laakiin marmar waa dhici kartaa qofka inuu qaandiis qaato laakiin ciyaalkii yar qaando looma ogolo my notebook are red ma dhihi kartid my notebook is red aa leedahay where my phone mobilkeyga isaa kama qamo where is my phone aa leedahay jumladda waxaa lagu dhisaa tennis lagu dhisaa mo jumladda laskama dhiso grammar lagu dhisaa haddaa iska dhistid waxbaa kaa qaldamay marka grammarka haddaa baridid aada u fahmi doontaa marka jumladda waxaa ku dhisaa grammar waxaa ka shaqaysaa homeworkan waxaa qortaa 30 everyday waa objective soo qor waxaa soo qortaa 10 sentences soo qor describing everyday object in your home wixii guriga ka dhaca ama classroomska draw and label 10 classroom objectives soo qor in English waxaa weydiisaa family member to name 10 household objectives 10 household objectives soo qor waxyaaba guriga yaalo write short paragraph 8 ilaa 10 sentence soo qor adoo qeexayo schoolka classroomkaaga bedroomkaaga qolkaaga jiifka dhammaan waxaa isticmaashaa vocabulary hadda aan soo baranay oo jabtarkan aan ku baranay isticmaal muxuu ardayga faa'iida marka waxaa faa'iida lecturekan waxaa faa'iida identify and name common everyday object waxyaabaha caadi la isticmaalayo ku bare describe objectives using simple adjectives adoo isticmaalayo simple adjectiveska barate adjectiveska caadiga sifooyinka ask and answer questions about everyday object waxaa ku weydiin su'aalo waana ka jawaabtay waxaa isticmaasha marka
waxyaaba ayaa classroom, home, guriga, kitchenka, jikada, officeka, personal objectives, vocabulary, wax dhan waa isticmaasha. Communicate marka confidently about everyday items in English. waxaa barata waxyaabaha caadi la isticmaalaya baa English ahaana u baratay. marka cashirkan inay xifdiso isku day. erey walbo sooya ku xifdi. marka ingiriiska goormee barane. marka erey walba sooya ku xifdisid, ku xifdisid. bari isticmaalka markii la gaaro wixii aa xifdisa isticmaalaya marka. laakiin haddaad tirahdo luqadda aniga ereyada qaar ma xifdinahay oo ereyada qaar waa fahmaa. understanding waxaa loogu talagalay xisaabta. markii xisaab la joogo, physics markii la joogo, chemical markii la joogo, understand loogu talagalay. markii la joogo maadooyinka sidii luqadoo kale waa la xifdiyaa. vocabulary u baahan tahay inay xifdisid. ereyada hadda aan soo sheegnay homeka kuwa loogu talagalay, jikada, iskuulka, magaciisii, xafiiska, waxyaabaha dhan aan baranay waxaa lagaa rabaa inaa xifdisid. haddaad tirahda marka ma xifdinahay oo maku celinaya atikraar cala faqihan allah. haddaad wax ku celceliso caalimaa naqanaya. konton jir ahaaw, 15 jir ahaaw, haddaad wax ku celceliso isku mid waay aa u fahmay. laakiin haddaad tirahda hal mar wax aqrinaa cilmiga wuxuu kaa naqanaa 50 sano ama 20 sano aa luqada ingiriis daba ordee. hal mar jilba dhulka dhigo, cashirkan soo xifdi, soo fahan, wixii su-aalaha qabtid isoo weydii. marka koorsooyinkan kale aa ofar gareynaa haddii aad tahay arday ka tirsan macadka qaran academy, ama haddaad u baahan tahay koorsooyinkan waana heli kartaa. haddii aad ka daawanaysid muuqaalkeena youtube-ka, facebook ama telegramka ama tiktok, meeshuu kaa soo gaarabo, haddaad u baahan tahay koorsooyinkan dheeriga ah waxaan igala soo xiriirtaa nambaradan shaashadka kaaga muuqdo. labadaa nambar whatsapp-ka ka soo wac, insha allah waa lagu jawaabi doonaa. marka waana mahadsantihiin. salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.